nagu fasaxaya waa nugoonay adduweynuhu hana soo gaadho adduweynaha muslimiinta noo soo duceeyeen maalmihii ugu dambeeyay waxaa si aad u kacsanaa xaaladda Soomaalida South Africa ay soo wajahday nolol ka duwan midii ay ku noolaayeen har noqdaan magaalooyinka dalkani kuwa ka wada siman ugaarsiga iyo dilalka arxan darrada ah balse xasuusta Soomaalida ma aan mid marnaba ka go'aysa dilkii marxuum Cabdirashiid Axmed Good oo ay si aan horay loo arag ugu qarijiyeen magaalada Port Elizabeth baaritaanu telefishinka caalamiga ee Somali Channel sameeyay ayuu ku wareystay ehladii iyo walaalihii la dhashay marxuumka oo uu midkood goobjoog u ahaa dhibkii dhacayay waa kan isagoo nooga warbixinaya sidii ay wax u dhaceen xogna naga siinaya qaabkii walaalkii loo dilay iyo waxa sababay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Ciise Axmed Good waxaan ahay Cabdirashiid Axmed Good oo ahaa marxuumkii la dilay walaalkiisa uga ka weyn ayaan ahay waxa way meel la yiraahdo Boysenberg tuulo la yiraahdo ka tirsan Port Elizabeth meeshan aad aragtaana baan dukaan ku lahayn dukaankii waa la boobay maalinkii 29 bishii hore oo bishanaad ayaa la boobay goor galaba dukaanka waan iskaga cararnay aniga iyo marxuumkaas iyo nin kale oo yar kaleba u joogno walaalanahay saddex walaalaan ku joognay waan iska cararnay subaxdii dambe ayaan ku soo laabanay dukaankii waan dhaanay bal soo fiiriyo say wax u dhacaan gaari yar oo nin kale watay waan soo qaadanay dukaankii waxaan ugu imaanay wixii kale oo dhan lagu gurto laba fridge fataal oo taalan ugu imaanay meesha laga tagay labadii fridge ayay hawa naga gashoon dabacnay inaan qaadano gaarigii yaraa waan iska dirnay waxaan dhahnay inuu noo soo qaad gaari weyn oo ku qaadano fridge-da ninkii gaariga waday ninkii uu naga tagay muddo yar markuu naga sii maano hadda qiyaasi karin daqiiqada aan sabab badnayn waana la soo weeraray lagu soo weeraray meesha anagoo joognaa kulley saad macnaha la ogyahay bas way iska jirta wadanka soo weerartay masa yaga soo weeraray ummad tuuga lama odhan karo ummadii South Africaana soo weerartay oo ummadii kulley aan kala hadhino deegaanka kulley sida la ogyahay iska jiray South Africa way ka jirtay boobka iyo dhaca iyo dilka tuugadu wax dilaysa uu jirtay laakiin oo muxuu ahaa xoolo lagu dilayo guri loo dilayo tuugada waxa dhacay wax ku dili jireen boobkuna uu iska jiray inta dadka la boobo dukaamada la boobo muxuu ahaa dadka lama leen jirin Soomaaliinta badan marka ma aanan ku fikirin in anagana la raadsanayo ama anaga nafteena la soo weerarayo markaan meesha ku harayna ama firiishada aan rabnayna qaadano aday ummadii waan soo weerartay markaan aragnay ayagoo lagu soo yaacayo waan guriga galay dukaankii aan galay waan isku soo xirnay dukaankii markaan isku soo xirnay dukaankii waxa lagu daray jabin la soo jabiyo iyo dab lagu dukaankii la gubay lagu tuuray laba iridood laha dukaanka labadii iridood baa laga soo gubay dab lagu soo gubay adii markii dambe waan dhex jeednay iyagaan dhex oradnay markaan hay weynay dabkii iyo wixii baan iyaga dhex oradnay nafti la dhex xarnay waan eeriyadeen oo nacarsadeen saddexdeedii waa oradnay marka ninkan marxuumkan Allah u naxariistay dhintay uu naga lagu horeeyay isagoo xogaa uu naga horeeyay aniga yarka kale walaalkay guri baan galay guri haddana ku kalaan sii galnay adii intii anaga guriga galgalaynay ninkii marxuumka meel cid ka heleen sidii ku dileen marxuumka marka dadka qaar siyaabo kala duwan oo kala macneysteen bal sida adigu ka warhaysay iyo jirkiisa sida aad ku aragtay qaab sida loo dilaas dhigi kartaa wallaahi walaalo kama sheekayn karo waayo haddii aan ka sheekayno sida loo dilo xogaa waxaan dareemayaa xanuun fara badan baan dareemayaa laakiin qaabka loo dilay qaab ma aha bilaadan kulley xayawaan oo kale siisa loo dilo kale ma ku tilmaami karo waxaan lagu dilay ma jirin dhowle dhagax baa lagu dilay qof waliba wuxuu heli karay buu ku dilay jirkiisana meel fiiyo maysan lahayn wallaahi horta waa baxda saxaafadda aad baan ugu baahnayn waayo arrintaas inaan uga mahadceliyo ummadda Soomaaliyeed ee ka xanuunsatay dhibka aan moodayna markii hore intayada meesha joognaa ama intayada la dhalatay eelada inaan xanuun ka qabno ummadda Soomaaliyeed muxuu ahaa hawshaas nagu taageertay aad iyo aad baan walaal u mahadcelinayaa dhammaan dawladda federaalka madaxdeeda iyo muxuu ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaba iyo TV telefishinada af Soomaaliga ee kamidiyay Universal TV Somali Channel TV-da Soomaaliga oo dhan dhammaantood waan u mahadcelinayaa xanuunka faraha badan ee lala qaybsaday waliba ay naga sii badbadiyeen waayo waxaan dareem markii hore waxaan moodayay muxuu ahaa xanuun
waan keligay la bukay iyo intii macnaha meesha joogtay laakiin waan ka bogsaday markaan arko ummaddii soomaaliyeed meel kasta ay joogaan yar iyo weyn rag iyo dumar meel kasta ka muxuu arrintan ka samaynaya waan bogsaday aad iyo aad baan arrintaa u dhiiray ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay ilaahay muxuu ahaa midnimo ilaahay waxaan ka baryaa inay ummadda soomaaliyeed midowdo haye bal adigoo nooga faalloonaya dhacdeen xanuunka badneed ka dhacday magaaladan hadda ku sugnaaya b e bal nooga faallo iyo waxaad u tahay marxuumka allah u naxariiste allah u naxariista marxuumka waxaan ahay anugu adeerkii marxuumkana magaciisu waa cabdirashiid axmed good magaca saxdi waa kaas websaydyada qaarkood iyo warbaahinta waxaan ka maqlaynay cabdinaasir marka magaca saxda dadka soomaaliyeed ha ogaadaan runtii dhacdadaas xanuunka badan hore waxaa uga soo sheekayay walaalkii anugu waxba ku noqon maayo dadka soomaaliyeedna indhahooda ayay ku wada fiirsadeen isagana ugama horreynin ugamana dambaynayo dhacdooyin badan oo ka horreeya baa jira kuwaasoo kale kuwa ka dambeeya baa jira oo sidaasoo kale u dhacay inta wiilkii ka dambaysay haddana way ku socotaa oo ilaa xalay iyo shalay dad badan oo hadda 12 qofaa xidhan dhibaataduna weli dadka soomaalida aad bay uga socotaa waxaan u dirayaa dadka soomaaliyeed arrinkan inay u arkaan arrin mideeya wiilkan waa mideeya waa arrin maaragtay dadka soomaaliyeed 12 sano u dambeysay South Africa arrinkan ku socday dawlad la'aantii darteed dawladda Soomaaliya baaq baan u dirayaa runtii arrinkan sida uga gilgilatay sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaanka iyo duqa magaalada xamar tarsan sidii adkeyd uga hadlay barnaamijka uu soo abaabulay haddana uu ballamiyay barnaamijyo kale inuu ka dhici doonaan magaalada xamar 17 degmo si kastaba ha ahaatee maamulka telefishinka caalamiga Somali Channel ayaa ku raad jooga baaritaano dhowr ah ku saabsan dilkii marxuum Cabdirashiid Axmed Good sidoo kale boobkii dhawaan ka dhacay magaalada Port Elizabeth ayaanu muuqaalo dhowr ah idinkaga soo gudbin doonaa waa Cabdi Fataax Ali Samatar Sablaale Somali Channel Port Elizabeth